كرم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وداود إبراهيم إسحاق أحبس من حياتك هذه أربعة دقيقة دولار أضو dadkani maanta aan siinayno waa dad sida laga soo kala xulay saddexda qabale degmada Doolacado waa dadka ay abaartu saameysay waxaan siinaynaa maanta qoysas dhan 724 qoys ayaan siinaynaa dadkani waa dadka ay abaartu aad u saameysay oo aad u tabaalaysan waana 724 ruux laga soo kala xulay saddexda qabale degmada Doolacado dadkani marka la soo quleen waxaan u sameynay cabinetka afar qof oo cabinet qabala kasta afar qof oo cabinet lagu qoray si dadka baahan ee liita ee aan dabka shidin karin loo siiyay raashinkan tiradiisa ay yar tahay insha Allah waxaan aad ugu mahadcelinaynaa xukuumadda dadaalka ay sameysay ee dadka ugu talagashay inay ku garab istaagto waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala 724 qoys aan maanta qorsheynin aan siino in 100 qoys oo kale aan siino bari hadii ilaahrada barakacayaasha aan siino dadka barakacayaasha ee dhibaataysan ayagana abaarta ay saameysay 100 qoys oo kale aan siino guud ahaan degmada Doolacado qorshaha waxaan qaadanay aan ugu talagalnay waa 824 qoys in aan siino 724 qoys saddexda maamul qabale laga soo kala xulay saddexda qabalaha Doolacado laga saddexda qabale degmada Doolacado laga soo kala xushay maanta inaan siino bari hadii ilaahay ranaan siino 100 qoys oo barakacayaasha ayagana laga soo xulay dadka tabaalaysan ee abaartu ay saameysay waxaan aad marka koowaad ugu mahadcelinaynaa xukuumadda dadaalka ay sameysay inkastoo boqolkiiba aan dhihi karno dadku abaarta inay boqolkiiba 60 iyo 65 ay saameysay iyadoo sixir bararkii iyo dhibaatooyinka abaartii fatahaadihii degmada Doolacado ku habsaday ay dadku ay la ildaran yihiin maxaan ku raadayay gaajo. Salaam alaykum.